mararka qaar hal fikrad ayaa bedeli karto gebi ahaan noloshaada. Ku soo dhawow taxanaha Faynuusta, halkaasi oo aan ku shidi doono iftiin yar oo kaa caawinayo fahamka naftaada, noloshaada iyo qalbigaaga. Qayb walba waxay xambaarsan tahay fariin kooban oo kuu noqon karta hagahaaga maalinlaha ah. Haddii aad raadinayso deganaan, faham iyo isbedel dhab ah, meesha saxda ah ayaad joogtaa. maskaxda see loo damiyaa maskaxda dad badan oo naga mid ah su-aal waxaa ku taagan fikirkeyga zaa'id ugu badan yahay aniga maanta oo dhan waa fikiraa maskaxda ma la damin karaa sida moobeelka aa u damisid ma la samayn karaa maskaxdaada dami macnaheeda waxaa laga wadaa horta kow maskaxdaada inay ka nasato fikirka joogtada ah walwalka iyo culeyska si aa u hesho nasiino dhab ah okay sidee marka maskaxda off looga dhigi karaa qofka maalinle waxa u baahan tahay maskaxdaada inaa off aa u dhahdid telefoonka xiliyo aa off dhahdid ama silent status soo ma jiraan xiliyo aa qadka ka baxdid oo social media saf camal aa loo rabaa inaa maskaxdaada si maalinle ah waqti aa u leedahay aa off uga dhigtid waxyaabaha off looga dhigo waxaa ka mid ah qofka tadabbur horta inuu sameeyo tadabburka see loo sameeyaa waa soo fadhiisanee jidkaagaaba ku tadabbureebo ilaahay neefta qaabka u neefsanaysid inaa u fiirsatid fadhiiso neefsa marka neef qaado ada haddadaan adigoo ila hadlaysiin waxaa samaynaynaa neefaa qaadanaynaa qof kastoo idin kamid ah codkayga bes focuska ha saaro neeftiisana hala socdo okay waa fadhiisaa ama waa jiiftaa waxaa fiican inaa adoo fadhiisid oo maxaa la dhahay indhahaaga isku xir fadhiiso meel degan ama qolkaaga ku xirnaado indhahaaga isku xir ama haddii qol meel iftiin aa arkaysid neefaa qaadanayna marka okay neefta aa qaadanayna 4 ilbiriqsi neefaa qaadanaya 4 ilbiriqsi waa 1 2 3 4 moogtahay 4na waa heenaynaa 6da kalena si tartiibaa usii deynaynaa waa bilaabaynaa marka neef qaado sanka ka qaado weliba si xoog leh neeftaada waxaa rabaa inaad la socotid neefaa qaadanaysaa neeftaada la soco sanka ka qaado 4 ilbiriqsi waa heenaysaa afka ka sii dee marka si xoog leh usii dee waa ku celinaysaa neef qaado 4 ilbiriqsi hey sii daa haddana neefta aa qaadanaysid la soco jirkaaga dhaqdhaqaaqiisa xabadkaaga okay neef qaado 4 ilbiriqsi hay kadibna sii daa 5 maraa marka aa samaynaynaa 5 mar 3 hadda ka samaynay 4aad neef qaado hay sii daa neef qaado haddana hay sii daa xaaladaas yarta aa galayna waxaa loo yaqaanaa bows waxa la dhaho ama inaa ka baxday mashquulka ku jiro dhan oo aa focus saartay neeftaas aa qaadanaysid kumanaan ama dad badan oo kula mid ah oo aadan ka fiicnayn oo waxaa jiro neeftaas loo gado neeftaaseeta maalinla lacag loogu raadiyo amaba aan haysanin ama aan neefsan karin ama aanan dhib ku qabaan yani waxaa laga rabaa xaaladaas neefta aa qaadanaysid inaa qalbigaaga iyo naftaada aa u sheegtid alxamdulilah neeftaas aa qaadanaysid inaa ku raaxaysatid deep breathing aa lahaa si maalinla ah 5 mar inaa u dhahayd yani xaaladaas waxay ka mashquulka kaloo ku jirtida dhan aa ugu soo baxay waxaa kaloo jirto oo hadda si fiican baxsi badan looga sameeyey oona muhiim ah inaad samaysid oo qofkan relax ku dareemaya islaam ahaan salaada markaad tukanaysid inaa qof ogaal leh noqotid alxamdu markaa akhrinaysid inaa marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin codkaaga aa la socotid naftaada aa la socotid rukuucda markaa rukuucaysid jirkaaga qaabka aa dhehaysid yacni adiga dhan qof xaadir ee markaa iska soo dhigtid horta ma ogtihiin salaada laftirkeed inay daawo tahay qofka laakiin waa si saxaya hadduu u tugto oo ku tadabburo oo ku khushuuco oo ku xasilo
oo u arko salaada inuu ku nasanayo ku nafisayo oo yacni isku daaweynayo haddaa u tukatid like kab 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 haddaa u tukatid wax faa'iide ma ka arkaysid salaada markaa ku jirtid waxaa u arkay xaalad aad jawi ku qaadanaysid oo ku nasanaysid oo adiga dhan aad isku soo xaadirinaysid adduunka iyo buuqa aa ugu bixaysid neeftaada la soco alxamdu bes markaa akrinaysid neeftaada la soco macnaha aa akrinaysid faham aayaadka akrinaysid faham hal aayad ba allaha ka dhigay iyadana waxaa waaya hadafka macnaha aa ka hadlaayo mashquulka dunida iyo wax walbo maskax ahaan iyo waxa ku jiro dhan waxaa lagaa rabaa daqiiqado aa u qaas yeeshid oo aad kaga baxdid mashquulkaas shutdown ama demi maskaxdaada marka lagu dhahayo ama off ka dhig wax kale ma aha wax walba oo culays kugu haayo wax walba oo mashquul ku gelinayo waxaa waaye inaa break ka qaadatid okay qodobkaas si fiican aan iskula fahamnay neefta qotada dheer ama salaada labadoodaba muhiim ay noo tahay qodobka labaad waxaa waaye maskaxdaada si jawigaas aa ugu baxdid dhaqdhaqaaq inaad samaysid oo ku talagal ah dhaqdhaqaaqaas wuxuu noqon karaa 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo oo aad socotid ama jimicsi yar aad samaysid yaa wax fudud oo aad samayn kartid oo jirkaaga ama yoogo ama isjijiid haddaad samayn kartid oo kale in ayadana uga baxsatid xaaladaas marka aad ku jirtid marka maskaxdaada waxaa loo dira cortisolka hormoonka la dhaho oo aa ka ordoono oo suntan ugu ah oo hadda cudurrada ugu badan noo keeno way yaraanayaan hadday yaraadaan jawi waxaa gelaysaa oo xasilooni ah maskaxdaadana way degay maskaxda laakiin mar walba cortisol la soo deeyo way kacsan tahay way taagan tahay difaaci ku jirtaa inaad sas u ogaatid waay anaga marka waxaa rabnaa maskaxdeena waxaa ku duminaynaa wax walba oo jawi nabdoonna geli karo wax walba oo xasiloonina geli karo diiniyana u raadinaya ruuxiyana u raadinaya jir ahaana u raadinaya ma aha hal meel inaad focus ka saartid dhan 3 qayb oo ka fiirinay waxaan ruux ahaan inay ku dejinayaan ruux ahaan maxaa noo dejinayo alaa bidikrillahi tatma'innu alquluub qur'aanka akhriskiisa macnihiisa adoo fahmaayo aayad walba fariinta ee wadato adoo fahmaysid xuska ilaahay dikriga ducooyinka salaad waxaasoo dhan si ruuxi ah waaye marka muku filantaa ma dhahaynaa ruux bisa ku ekaanaynaa maya maku ekaanayno jir inaa ku dirtid waaye aljism السليم ustaad iyo dhamaystira العقل السليم في الجسم السليم ku jira caqliga caafimaadka qabo jirka caafimaadka qabo ku jira sax sas ma ahayno ayadana macnaha jirkaaga inaa aadan iska indhatirin oo jirkaaga dhaqdhaqaaqaas hadda aan ka hadlayno oo kale muhiim oo noo yahay waxyaabaha maskaxiyan qofka oo cortisolka ka yareynayo ay ka mid tahay dadka qaar socodka waxay u isticmaalaan inay isku caateeyaan ma aha socodka 10 daqiiqo oo socod ah iyo 15 daqiiqo socod aad samaynaysid waxaa ugu naxariisanaysaa waa naftaada haddaa rabtid inay cibaadadaada ku toosnaato adduunkaaga iyo aakhiradaadaba waxaa lagaa rabaa ina shidaalkaaga qayb ka mid ah waa socodka qodobka saddexaad waxaa waaye dadka fikirka badan ha isticmaalaan wayna ku faa'iidi doonaan wax qor qoraal samee journaling samee mar walbo maskaxdaada afkaar badan dad badan oo afkaar badan maskaxdooda kusoo dhacdaa laga yaabaa maantoo dhan wax maskaxdooda ka buuxo laga yaabaa dad kula hadla inaad haysanin dad maantoo dhan kuu shaqala inaysan jirin qoraal samee qor fikradaha maskaxdaada ku wareegayo qor dareemahaaga qor waxa walwalka kugu haayo qor waxa يعني cabsida aad ka qabtid isku day inaad xalisid adigoo isticmaalayo qoraalka waa daawo aan la ogeyn qor wax mobilka haddaa ka cabsanaysid buug in lagula aqriyo mobilkaaga journaling application kusoo degso isticmaal marka aad ku jirtid xaaladda qoraalka maskaxdaada waxay ku jirtaa waxay off ka tahay wax walba oo culays waxaa focus ka saaraysaa qaabka aad wax u qoraysid fikradihii maskaxdaada ku jirana waa daadinaysaa macnaha banaanka ku daadinaysaa waa adoo hadlaysid oo kale qafiifa dareemaya marka qoraalka aad dhamaysid wax walba culays kugu hay ka annama adoo hadashay mana kasaleenaysid macnaha dadka qaar waxaa laga yaabaa meel khaldan inay ku hadlaan hadhow ay dhahaan waay aa u hadasho waxaasoo maxaa warkaaga tagay warna makaa tagaayo maskaxdaada marka waxaa ka saaraysaa wax walbo aan muhiim ahayn
oo ka buuxo qoraal uu saaray qodobka afraad of maskaxda qaabka uu dhigaysto waxa waaye inaa 30 daqiiqo ama waqti yani inaa of ka dhahid social media inaa yareysid oo daqiiqado kooban aa isticmaashid waqti gaar ah inaa samaysatid oo quraankaaga aa ku akhrisatid haddii aa hooyo tahay ama haddii aa tahay qof shaqeeyo ama haddii aa tahay qof mas-uuliyad badan xilliyada ugu fiican oo waqti aa naftaada siin kartid waa 2 waqti ani ahaan adinkana waad soo qori kartiin xilliyada kale aa u aragtiin xilliga ugu horeeya waxaa waaye subax alisay salaada subax halka saac 11 saac ilaa 12 laga gaarayo saacadaas inta ilmaha soo kicin ama reerka ilmaha waxa kale dadka dhan ay soo kicin waa saacad jawigu uu degan yahay see tahay ugu raaxaysan kartid wax walba oo naftaada aa u rabtid aa u samayn kartid saacadaas marka waxaa u kala qaybsanay quraankaaga inaad ku fikirtid waxyaabaha ilaahay uu ku siiyey ilaahay u mahad celisid ku duceysatid dhaqdhaqaaq ku samaysid hal saac oo ka mid ah waxay u dhigmataa 4% oo maalinkaaga ah boqolkiiba 4 hal saac oo ka mid ah macnaha waxaa la 24 saac lagu siiyey 24taas saac 4% oo uga dhigmaa halka saac marka nafsadaada waxa uu samayn lahayd oo break ay ku qaadan lahayd maskaxdaada ku dejin lahayd energy aa u qaadan lahayd qodob waay qodobka labaad waxaa waaye ilmaha waqtiga ay seexdaan 3 saac ilaa iyo 4 saac ilmaha waqti hore dee ka seexdaan marka ilmaha seexdaan kadib 1 saac uu ku xigo intaada seexanin ka hor 1 saac ayadana qodobka shanaad maskaxda qaababka loo damiyo waxaa ka mid ah inaad samaysid maalinkaaga qubays kulul ama qandac wax loo yaqaano oo jawi degan musqusha marka aad qaacido oo waxaa jirto muhiim ah dumar ahaana noo anficayso maadaama aad dhahno dumarnimada waa deganaan waxaa la rabaa wax kasta oo aad qabanaysid oo naftaada u qabanaysid deganaan inaa u samaysid tusaale markaa qabaysanaysid inaa qabayskaaga la socotid dadka qaar waxaa laga yaabaa qabayska ay qabaysanayaan mala socdaan cuntaday cunayaan mala socdaan markay xiranayso mala socoto qofkan boobsiisa ku furan wax walba uu qabanayo dig wuxuu sameeyo waxaa samaynaysa la soco wajigaaga kareem markaa marinaysid gacantaada iyo qaabka jirkaaga aa u marinaysid la soco waxay kaa caawinaya wax walba markaa isla socotid maskaxda waa soo jeedisay laakiin dadka qaar ayagoo wax marsanayaan haddana maskaxdoodii way mashquulsantaha wax kaloo ka fikiraa salaada soo tukanaya waa mashquulsan yahay wax kale maskaxdiyaa macnaha aada of ka dhigin maskaxdan waa lagu tababaraa inaad demisid oo soo jeedisid inaad fadhiisatid 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo adoo mobile wax kala haysanin naftaada la su'aal weydiisid maanta si dareemaysaa maanta maxaa waa culays ku haysto xaalkaaga muxuu yani adiga aad isfiirisid adiga iska yani isla hadashid qodobkeena lixaad waxaa waaye inaad ka fiirsatid wax yani u fiirsasho inaad samaysid tusaale ahaan ani waxyaabaha aad u jeclaa waxaa ka mid ah shaax markaa cabaysid shaaxaas inaad u fiirsatid shaaxa caraftiisa ama qaxwada carafteeda oo kale markaa cabaysid diyaarinteeda dareen urkeeda waxaas inaad ku qaadatid caruurtaada laftirkooda ciyaartooda maxaa la dhahaa qaabka u ciyaarayaan sidee u fiirsasho inaad samaysid wax kasta oo aad samaynaysid like u fiirsashadaas waxaa la rabaa u fiirsasho energy aad ka helaysid u fiirsasho waxaa jirta xun inaad wax walba xumaanta ka fiirisid ayadan dhibaato waayo sidee loogu soo kaban karaa daalkan aan ka hadlayna caawa oo dhan iyo dareemahan aan soo sheegaynay sidee looga daboobaa okay waa sii wadanaynaa number 1 qaabka looga soo kaban karo waxaa ah horta qofka inuu fahmo waxaan hadda aan ka hadlaynay ma ahan cilad talaabada ugu horeysa waxaa waaye inaad horta xaaladaada fahamtid inaad joojisid is-eedeynta inaad dhahdid waa daalay sababtoo ah wax badan ayaan qaaday mas-uuliyaad badan ayaan qaaday ma ihi qof daciif ah ma ihi qof liito ma ihi qof xun waxaan u qalmaa in aan soo kabado ama kabsado ama maxaa la dhahaa isdaweeyo amaba xaaladan aan ku jiro inaan ka gudbo daawada koowaad marka inaad fahantid waa xaaladaada hooyooyinka qaar hadda caawa maadaama assessmentigan aan sameynay
ومليناي أول بينسان يقول عيسى هذا يمدح قراعشة يدب ولا شيء بلا ما الربو فهم cilada adiga ma lihid laakiin mas-uuliyaadkii iyo culeysadii caawa dhan aa kasoo sheekeynayna qayb ka mid aha ku saameeyaan ayagaana kuu keeneen inaad xaaladan gashid xaqaan u leedahay inaad ka baxdid mas-uuliyadaada marka adiga waxay tahay inaad badbaadisid nafsadaada daaweysid nafsadaada laakiin mas-uuliyadaada ma aha wixii kugu soo dhici sababo badan oo 10 sababaa sheegnay qaybna waa ku lahaan kartaa mas-uulaa ka noqon kartaa qaybna ma ka tihid marka fahamka number 1 waaye number 2 waxaa waaye inaad joojisid naftaada inaad bareshar saartid cadaadisid ayadoo dareemaya qofka inuu daalaya maskaxiyan inuu sii wado hooshii inuu sii shaqeeyo inuu adkaysto inuu rafto qof adag iska dhigo karti badan iska dhigo macnaha waxaa u baahan tahay inaad joojisid gaab inaad geshida u baahan tahay si tartiib inaad isku dejisid qodobkeena saddexaad waxaa waaya dib inaad u dhistid jirkaaga markaa ku dhahayo murqaha dhisama ka wadi waxaa ka wadaa proteinkaaga waa inaad saxdid maxaa saxe waxaa saxe hurdadaada saxaysaa activities naftaada inaad kusoo kordhisid jadwalka hadaaya aa ka sheekeynaye neefsashadaada waxaa ka hadlay hal qodob oo daawada ugu muhiimsan oo ah maskaxda inaa maadaama maskaxiyan loo daalan yahay maskaxda off inaad ka dhigtid afaraad waxaa waaye inaad samaysid dareensiideen wax la dhaho emotional release wax loo yaqaano taas maxaa waaye dareemada xunxun oo qalbiga aa ku haysatid siidaa qaabkee u sideene qor waxa aad dareemaysid qaabkee kale u dayn kartaa ooy haddii aa u baahan tahay inaad oosid hadda sessionkan anagoo ku jirna haddii oohin aad dareemaysid albaabka aad iska xiro fasaxa u tahay xaqa u leedahay waa oo kartaa oohinta daciifnimo ma aha marmarka qaar oohin hadday ku heeso aad dareemaysid ha isku celinin nafis qaab kale u sii dayn kartid maxaa waaye la hadal qofaa ku kalsoon tahay ama qof la taliya caafimaadka maskaxda oo ka shaqeeyo arrimahaas la talin haddaa u baahan tahay kala hadal u sheeg okay fariinta maxaa waa marka dareenka la qariyo oo maskaxda aa ku wadatid wuu ku daaliyaa kan la sii deeyane wuu ku daaweeyaa fariintaas aa kusoo celiyo dareenka la qariyo oo aa maskaxdaada ku wadatid dareenka la qariyo wuu ku daaliyaa kan la sii daayane wuu ku daweeyaa qaabka aniga hadda kuu fudud waa kuu sheegay saddexdaas nooc qaabka usii dayn kartid u sii daa ama qoraal ku qor warqad ku qor oo jeexjeex ama ooy ama maxaa la dhahaa u sheeg qofka ku kalsoon tahay ama la taliya caafimaad u tag intaasba waa qaab aa ku dayn kartid dareemadaada haddaad dareemaysid maseer haddaad dareemaysid niyadjab haddaad dareemaysid murugo haddaad dareemaysid wax walba oo dareen negative ah qalbigaaga ku haystid sidaa shan waxaa waay xuduud samayso boundaries lahaaw waxaada awoodin ma samayn kari dheh haddii aa u baahan tahay nasasho yeel waxyaabaha oo xadgudubka aa u aragtid sheeg maya dheh dadka yacni adoo ixtiraamaysid awooddaada mar walba awooddaada iyo ka soco lixaad waxaa waaye naftaada koobkaaga buuxso koobkaaga cidnaha u sugin inay kuu buuxiyaan sidee koobkaaga u buuxsan kartaa waxyaabo yaryaroo ku farxad gelin karaa jiro si maalinle ah u sameey waxyaabaha ku farxad gelinayo ku dar maalinkaaga maxay noqon karaan quraan aa akhrisatid socod aa samaysid koofee aa samaysatid akhris aa samaysatid qaraabada la soo sheekaysatid hawa aa soo aragtid maskiin aa caawisid ilmo yaroo aa wax bartid waxa ku farxad gelinaya cilaana gacmaha marsatid wax alla waxay noqoto 1 2 3 qor waxa ku farxad gelinayo si maalinla u sameey madaxa in lagu masaajeeyo haddaad jeceshahay maalinla adiga u masaajeyso cilaankaaga caraftaada dadka qaar barfuun inay isku buufiyaanay caraf ka helaanbo bes intaasay tahay farxad ka helaan marka ogow maxaa waaye waxa farxad noloshaada soo gelinaya si maalinla ahna u sameey 7 maxaa waaye marka waxaa yareysaa culeyska isweydii marka waxyaabaha aa u baahan tahay inaad joojisid maxaa waaye fikirka badan inaad joojiyaa u baahanahay bixinta badan inaad joojiyaa u baahanahay dhafarka badan inaad iska joojiyaa u baahanahay culeysidaaneed yacni qor maxaan joojin karaa isweydii 2 maxaa waaye maxaa dib ii dhigi karo ani dib maxaa ku dhigaayo qor
ما أها إنا وحول بقبتد ما أها وحا أبودد إنا قبكرتد واي قلب كان سديدان وحاواي دجي nervous system nervous system هدايا soo sheegay qaabka loo dejiyo waa maskaxda qaabka u dejinaysid toban qodob camal ka hadlaa umaleena neef qaadashada fikirka meditationka adoo yani miirkaaga joogo salaadii inaad tukatid oo kale inaad mobilka ka fogaatid waxyaaba badan aan kasoo hadlay oo lagu dejinayo nervous systemkeena muhiim uu noo yahay haddaa dumarnahay in la dejiyo markaa nervous systemka dejisid maskaxda waxay ka saartaa wax walba oo emergency ah inay difaaca ay ku jirto iyo focuskaas ay ka baxdo okay qodobkeena sagaalaad waxaa waaye talaabooyin yaryar qaad oo si maalinle ah u samayn kartid ha isku dayin inaa hal mar bogsatid taasna waa qodob muhiim ah dadka qaar waxay rabaan hadda cashirka sidaa u sheegay isbuuc inay ku fiyoowaadaan haddaba ha islu goonin daalkan caawa ka hadloono waa daal safar dheer kusoo socday laga yaabaa maalintii lagu soo dhalay intaad soo koraysay culays kugu bilaawday ilaa imaantay inuu uu yahay sidaas darteed waa safarkan wuxuu u baahan yahay adkeysi iyo dulqaad iyo joogteen talaabooyin yaryara awoodid sameey qodobka ugu dambeeyo oo 10aad waxaa waaye inaad raadisid taageerahaaseeta wuxuu noqon karaa qoys haddaa leedahay asxaab fiican haddaa leedahay midda saddexaadna waxaa waaye qof counseling ama caafimaadka maskaxda ka shaqeeyo hilmaam hadal ku jiree haddii aa u baahan tahay qof la talin caafimaadka maskaxda sameeyo waa sameeyaa sessionskaaga waa soo booking garaysanaysaa waxaa rajeynayaa insha allah qofkii diyaar u ah in ayadana aa kala shaqeeyo qofkii oo u arko inuu helayo wax kale oo waxyaabaha kale aan kasoo hadalnayna isku xalin karana waa very good cashirkeena caawa aan ka hadlaynay waa fadhi daaweyn ma ahan kaliya cashir sida aad dareemaysiin assessmentiyaa ku sameynay waxaa ku faqnay sababaa ku raadinay sababihii aan ka hadalnay calaamadihii qaabkii isku daweyn lahaa intaba waa soo sheegnay qodobka intaaseetuu noogu egyahay ugu dambeyn waxaa idin dhihi lahaa gabdho adag aad tihiin haddaaba tihiin gabdho soomaaliyeed oo wadcii soomaalinimo kusoo koray ciladna ma lihidin eedna ku lihid xaalad walba oo hadda aad ku jirtid waxaa tahay qof mudan farxad waxaa tahay qof muddo dheer yani soo qaatay culeysyo soo qaatay haddana wax u baahan tahay inaa nafsadaada adiga xambaarsatid qoobkaaga buuxsatid mas-uuliyadaadana waaye in aad ka shaqaysid caafimaadkaaga deganaantaada iyo horumarkaaga waa wax adiga kuu yaalo oo u baahan inaad ka shaqaysid cidna aadan ku eegan karin maanta haddaa tahay qof qaangaar ah oo codkayga dhegaysanayo adigaa mas-uulka ah wax walba oo farxadaada ah taas ogow farxadaada cidna kuma xirno xasiloonidaadana cidna kuma xirno horumarkaagana cid kale kuma xirno nin walba yani nafsiisa waaye maho intaas heeta waa fariinteeda ugu dambeysan waxaa idin sheegayaa waxaan waa ka gudbi kartiin waana la xalin karaa wax oo normal ahna waaye saa aaminsanahayna hooyooyin badan iyo gabdho badan oo soomaaliyeed waxay la nool yihiin waaye oo maalinkeena ka mid ah insha allah waxaa rajeynaynaa wax badan inaa cashir ka fahanteen